kii ugaarataada ku xijada waxay tiri naag 99 halaal laga bixiyey aad rabtaa inaad sagaar ku bedelato maxamedow galabta waxaan jeclahay inaan ka sheekayno sheeko liya 3 maalaawe sheekadan waxay ka dhacday miyi ka dhacday kulliba saa xogta ku helay waa qaar ka mid ah sheekooyinka dadka miyiga laga soo wariyo sheekadan waxay ku dhacday nin odaya ayaa gabar u dhalay laga soo doonto wuxuuna yiri gabadheeda waxaan ku rabaa 100 halaad iyo qori wiil gabadha soo doontay waxa uu xoola ka lahaa 99 halaad iyo qoriga 99 halaad iyo qoriga ka bixi wuxuuna yiri hasha dhiman waa muddo waqti kadib aan bixin doonaa yiri kulli waxa la gaaray waqtiga mideynta hasha ninkii odaga ahaa waxa uu tagay gurigii waxa uu martiyay guriga wiilkii gabadha ka qabay waxa uu u doontay hashii habeenada kamid ah cidii waa cayr oo xoolo ma harin xooli ay lahaayeen 99 halaad ee gabadha laga bixiyay odaga wax loo qalo ama lagu sooro ma jiraan gabadhii way fikirtay nin kamid ah dadka dariska ugaarata ah ay u yeerto waxayna tiri caawa aabba jooga wax lagu sooroon u baahaya marka waa inaad ugaar soo dishaa ama ugaar keentaa wuxuu yiri waa diyaare maxaa bedelkeeda kulli gabadha guriga ka gala waxay tiri diyaar wax kasta ku qanacda bedelkeeda waa lagu siinayaa horta kan ugaarta xabad sagaar soo dila xabad sagaarkaada loo qala waxayna tiri bal goosha tag hilibka wax ka sugo hawsha kale waa noo dambeyn doontaa hilibka iyadoo waday u geeda sagaarka waxayna tiri 3 maalin hurdada ka kaca su'aasha waxay ku soo celiyeen maxaa kala jeedaa 3 maalin odayga ka bilowday waxay tiri reer 99 halaad oo u lahaa ka kaxaysataad hal u soo doonata reerkii cayre ninkeedii ku xijada waxay tiri 99 halaad oo dheeraad naag ka bixiyay tiri xoolna kuma harin kii ugaarataada ku xijada waxay tiri naag 99 halaad laga bixiyay aad rabtaa inaad sagaar ku bedelato warka sheekada muhiimadeeda halkan ay ku jirtaa oo macno ah gabar 99 halaad laga bixiyay in uu rabo in sagaar ku bedesho sheekooyinka noocan marka waa sheekooyin serious oo mararka qaar ka jira deegaanada miyiga inkastoo ay soo qornay haddana dadka miyigu xogta sheekada way hayaan oo maskaxiyan ay u hayaan caada kama dhicin laakiin sheekadu sheeko jirta waa meel ay ka dhacdaba laakiin niman saaxiibadayaan galab dhex waqtiga afurka kulanay ayaa sheekada iiga sheekay marka sheekada markaan dhageystay mid ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan aan maqlay hore uma maqal waxaan laga yaabaa dad badan inaysan maqal balse waxaan garwaaqsanay in dadka kale ee aan maqal ee aniga ila midka ah oo adiga maxamed ku jirto in la wadaago marka dad sheekooyin kale way jiri karaan oo dadku sidaan oo kale ay hayaan oo aniga dad ila mid ah aan maqal ayagana waqtigooda insha Allah yarka fursad u helno oo ay soo gaartaan dadka la wadaagi doona haddii Alla idmo